koox hubaysan ayaa gudaha u galay hotelka Ilet halkaas oo ay ku sugnaayeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale dad shacab ah oo xilliyada galbihiya u casriyay toonta halkaasi weerarka oo markii hore ku bilowday qarax ayaa mar qura gilgilay agagaarka hotelka iyo guud ahaan dhismaha taasina waxa ay keentay dadkii ku sugnaa hotelka oo isugu jiray mas'uuliyiin iyo shacab inay anfariiraan oo qof walba uu garan waayo halka uu cirib iyo jaan dhigi lahaa taasi waxa ay mar kale soo rogaal celisay khatartii badneed oo dadka qaar waxay ku huleeleen albaabka hore goobta uu qarax ka dhacay waxaase daqiiqada kadib ku xigay rasaas xoogan oo mar qura wada qabsatay gudaha hotelka taasi oo ay ganayeen ragga ilaa iminka ka dhex dagaalamaya gudaha hotelka mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa qaarkood ku dhaawacmay qaarna ay ku dhinteen dadka ilaa hadda la xaqiijiyay waxa kamid ah Cabdirasaaq oo ahaa xubin sare oo ka tirsan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee Soomaaliya kaasi oo ku dhintay weerarka Amin Ambulance oo ah hay'ad gargaar oo dhinaca dadka gurmad degdeg ah siisa ayaa warisay in 28 qofood oo dhaawac ay tirada iminka ay cagaynayso waa tirada kaliya ee sida hordhaca loo helay dadka degan agagaarka degmada Cabdicasiis qaarkood ayaa soo warinaya in wali ay maqlayaan rasaas aad u xoogan oo agagaarka ka dhacaysa qaarkood waxay sheegeen in rasaastu ay u muuqato laba dhinac oo diriraysa tani oo muujinaysa in gudaha ay ka dhex dagaalamayaan koox ka tirsan al-shabaab sidoo kalena ay weerar goobta ku yihiin ciidamada dawladda oo doonaya inay howlgalka soo afjaraan una dhameeyaan kooxdaasi shuftada ah ee weerartay hotelka xeebta Liido waxay ka mid tahay goobaha ugu badan oo ay dadka Soomaaliyeed ku nasad doontaan oo ay ku qaataan waqti wanaagsan hotelka Ilayna wuxuu ka mid ahaa hoteelada sida casriga ah loo dhisay ee kulmiyay dadyow kala duwan isla markaasna soo jiitay indhaha dad badan oo Soomaaliyeed haatay ahaan lahayd kuwa gudaha jooga iyo sidoo kale kuwa dibadda joogaba hase yeeshee kooxdan hubaysan ee ka diidsan horumarka ballaaran ee ummadda Soomaaliyeed ay ku talaabsanayso ayaa gudaha hotelka galay waxaana guud ahaanba sawiro hordhac oo laga soo qaaday uu muujinaya in hotelku uu burburay sidoo kale muuqaalada qaar ayaa muujinayay dad aad u badan oo dhulka yaala oo dhimasho ah halka dhaawacuna uu aad u badan yahay muuqaalkan waxa uu qayb ka yahay muuqaalo hordhac oo laga helay waxaana sida la arki karo uu muujinaya dad aad u badan oo dhulka daadsan isla markaasna qaylinaya oo ku cabanaya qofka in la siiyo oxygen markii hore waxa aad u adkaatay in kooxaha gargaarka degdega ay goobta soo gaaraan maadaama ay kala cadeen xaaladda sida ay ahayd markaas hase ahaatee hadda Amin Ambulance gaadiidkooda kala duwan ayaa goobta ku degay bilaabayna inay dadka Soomaaliyeed caawiyaan wixii soo قرر مياردي سالي سو تيده يا ورواله قاد قر و داوعي هي داوع واي قرر مياردي سالي سو تيده يا ورواله قاد قر و داوعي هي داوع واي قرر مياردي سالي سو تيده يا ورواله قاد قر و داوعي هي داوع واي